بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كلنتي وعن أرضي كسر دوادا بيج كبايو أكاديمي يوتيوب جانل كبايو أكاديمي بايو أكاديمي وحقبترها أرضي الصوماليات إما دوين كسن تيفيكا maantana waa maalin kale iyo maalmihii fiisigiska fasalka 12aad ee dugsiga sare hadduu aaladmo insha Allah taala maanta waxaynu halkan ku gabagabay doonaa chapterkeena koobaad ee oscillatory motion waxaynu qaadan doonaa qaybihii ugu dambeeyay chapterka maanta insha Allah taala ciwaankeena wuxuu quseeyaa ama uu ku saabsan yahay wax loo yaqaan equation of simple harmonic motion islaayta socodka loo yaqaan socodka isku dubaridan ee fudud waxaan horay kaga soo hadalnay energy-ga socodka isku dubaridan ee fudud iyo kalka socodka isku dubaridan ee fudud maantana waxa ka hadli doonaa isla egta socodka isku dubaridan ee fudud the equation of motion isla egta socodka of an object in simple harmonic motion shay ku socda socod isku dubaridan ee fudud can be found from waxa laga soo heli karaa a relationship between xiriirka ka dhaxeeyo simple harmonic motion socodka isku dubaridan ee fudud iyo uniform circular motion socod goobeedka qaabaysan socod goobeedka waxa loo qaybiyaa labo waxa lagu soo qaataa fasalka labaad ee dugsiga sare form 2 uniform circular motion iyo non uniform circular motion ayaa loo qaybiyaa qayb mid ka qaabaysan oo loo yaqaan uniform circular motion iyo xiriirka ka dhaxeeya waxa loo yaqaan simple harmonic motion ayaa laga soo saari karaa isla egtan loo yaqaan isla egta socodka isku dubaridan ee fudud waxaan ka hadli doonaa marka isla egtan waxay qusaysaa saddex shay oo ah displacement, velocity iyo acceleration. Displacement balan kor marno hore waxa ugu soo qeexnay inuu yahay is the distance from equilibrium position waa fogaanta bardheelitiranka uu jira shay in either direction labada dhinacba right side iyo left side labadaba. Amplitude maxaa la marka is the maximum displacement waa barabaxa ugu badan from mean position uu shay u jira bardheelitiranka in either direction up and down kori hoos meesha uu inta uu jiro shay barabax inta uu jiro meesha loo yaqaan mean position amplitude loo yaqaan marka waa kana marka qaacidooyinka lagu wada displacement-ga haduu yahay horizontal jif haduu yahay waxa lagu helaa a cos omega t haduu vertical yahay uu joog yahay waxa lagu helaa a sin omega t ayaa lagu helaa tusaaleena tobanaad wuxuu daaran yahay ama uu quseeyaa waxa loo yaqaan displacement of simple harmonic motion wuxuuna leeyahay tusaalahan Emerson Spring cuf moolo ku xiran ya vibrates gariiray vertically qaab joog with an amplitude of cotton dan 15 cm and frequency of 20 Hz iyo rakaadan 20 Hz sidoo kale waxaan leeyahay it moves initially in upward direction shaygan wuxuu u gariiray ama uu dhaqaaqay upward direction korkor ayuu dhaqaaqay laba su'aal aan weydiiyay marka su'aasha koowaad waxaan leeyahay write the equation waxa qortaa select of this oscillation walhashadan ama socodkan selectiisa qor b waxa la yiraahdaa what's the position and direction of motion waxa sheegtaa shayga barabaxa uu sameeyay iyo jihada uu sameeyay 3.1 second haduu yahay timeka waxaynu aadi doonaa sabuurada insha Allah taala anagoo haysana given amplitude frequency iyo time ya waxaan aadi doonaa sabuurada waxaan soo xisaabi doonaa displacement-ga iyo direction-kiisa sidoo kale isla egna waa dhisa doonaa marka hore oo iidan ku hormari doonaa ila soo qaado buugaaga qalinkaaga iyo scientific-gaaga waa saddexda laga maarmaanka u ah maadada physics-ka iyo maadooyinka calculation-ka ama ila soo markaan waa tusaaleyn tobanaad ee chapter-ka koowaad tusaaleyn tobanaad wuxuu leeyahay cuf ayaa lagu xiray moolo oo u gariirtay qaab joog mooladuna waxay lahayd amplitude ama cotton dan 15 cm sidoo kale mooladu waxay sameysay frequency ama rakaadan 20 Hz hadaba waxa soo raadisaa ama dhistaa isla egta uu yeelan doono socodka noocan sidoo kale hadii time-ku la mid yahay 3.1 second waxa sheegtaa displacement-ga ama barabaxa inta uu la ekaanayo marka hore waxaan sameeynaa marka qaybtii hore waxaan dhisanaynaa isla egteeni su'aasheeda isla egta inta dhisin ka hor su'aasha ugu horeysa isweydiinayna waxa waaye ma vertical bay u xiran tahay mooladu mase horizontal bay u xiran tahay haddii vertical ay u xiran tahay waxaynu isticmaali doonaa displacement-ga
y is equal a sin omega t tusaalahan hadda waxay u xiran tahay vertical waxay xiran tahay waxay isticmaali doonaa marka qaacidadan ay isticmaali doonaa oo ah y waxay la eg tahay a sin omega t waxaynu xusuusanaa fasalka labaad ee dugsiga sare ama form 2 waxaan kusoo baranaa markii la joogo circular motion socodka loo yaqaano socod goobeedka omega inay la eg tahay 2 by f haddii frequency ah haysato 2 by f ay la mid tahay inta nagu bedel marka y waxay la mid tahay a sin 2 by omega wadikad nagu bedelna 2 by oo ku dhacsan t intii baa markay haysanaa amplitude waa haysanaa 15 centimeter t ma haysano f waa haysanaa soma 15 centimeter ka xawada shaabiti ahaan marka waa 15 loo qaybiyay boqol oo la mid ah 0.15 meter intana ku bedelo doona marka waa waxa la mid tahay marka amplitude ka 0.15 meter oo ku dhacsan sin 2 by f ma qaysana 20 t waa waxa la mid tahay marka 0.15 sin 2 by 20 isku dhufan marka maxaa waaye labaatan u dhuftay labo waa 40 by oo ku dhacsan t isla agteeni marka sidaan ay ku dhisan tahay oo su'aasha qaybta koowaad ee ahayd wayn ka jawaabnay isla qaybta labaad marka oo b ah waxaa haysanaa isla agtaana 0.15 sin 40 by t ayaan haysanaa booska t waxaa noogu bedeshaa waxaa loo yaqaano 3.1 second noogu bedel 3.1 second noogu bedel marka علينا واي على ميتاي 0.15 sin 40 by أقول عشان 3.1 meesha marka joogto marka scientific ay arday waxa saartaa waxa loo yaqaan radian scientific marna wuxuu ku shaqeeyaa degree marna radian ku shaqeeyaa isku hubi scientific inuu radian ku saaran yahay radian marka saaran kadib waxa gelisay 0.15 oo ku dhacsan sin oo lagu dhuftay 40 oo ku dhacsan by oo lagu sii dhuftay 3.1 waxa la mid tahay marka 0.15 oo lagu dhuftay sin oo ku dhacsan 40 lagu dhuftay by lagu dhuftay 3.1 wuxuu soo saari doonaa marka su'aalaha insha Allah taala displacement inuu leeyahay 0.03 waxaan soo bixi doonaa inuu yahay negative waxayna cadeynaysaa marka displacement inuu lid ku yahay jihadii uu u socday moolada uu socotay marka waa uu la mid yahay waxa la mid tahay negative 0.03 negative ka kala masheegayso waxay sheegtaa direction kama jihada uu shayga u barabaxay waa hagaag hadii aan ka soo hadalno displacement imankana waa velocity ama keenan ka socodka isku dubaridan ee fudud keenan waxa hore u soo qeexnay marka joogna fasalka koobaad inuu yahay the rate of change heerka isbedel of displacement ee barbaxa ku dhaca per unit time iyadoo loo fiirinayo aminta uu ku dhacay barbaxaas isbedelka xusuusnaa marka velocity-ga marka waxa la dhahaa waa positive markii loo socdo dhanka midig waa negative marka loo socdo dhanka bidix waa 0 marka la joogo bardhamaadyada waana heerkii ugu sareeyay marka la joogo midpoint-ga ama meesha loo yaqaan equilibrium position marka la joogo waa heerkiisa ugu sareeyay ee ku socdaa velocity-ga markii vertical shayga uu socdo waxa lagu helaa a omega cos omega t hadii shayga horizontal uu ku socdana waxa lagu helaa a omega sin omega t hadii shayga maximum speed-kiisa la raadinayo waxa lagu helaa a times omega amplitude lagu dhuftay omega ayaa lagu helaa acceleration waa qaybta ugu dambeysay section-kan acceleration of simple harmonic motion karaarka socodka isku dibaridan ee fudud karaar waxa ku soo qeexnaa inuu yahay the change of velocity isbedelka ku dhaca keenanka per unit time iyadoo loo fiirinayo aminta isbedelkaas uu ku dhacay waxaana lagu helaa markuu shayga horizontal u socdo a omega square ku dhacsan cos omega t markuu vertical yahay waxa lagu helaa a omega square sin omega t maximum acceleration waxa lagu helaa a oo ku dhacsan omega square ana waxay u taagan tahay amplitude tusaalena 11aad aragna marka jabtarka koobaad tusaalena 11aad wuxuu leeyahay
the equation of motion of particle isla egta socod ee qurub kaas oo ku socota vertical simple harmonic motion socod isku dibaridan oo fudud oo joog ah yaa waxaa lagu helaa isla egtaan ah 10 cm sin 0.5 radian per second ku dhacsan t waxaan leeyahay marka wad particle displacement waa maxay barbaxa uu sameeyay qurubta velocity keenankiisa sheeg acceleration ka sheeg time ka maxaa u qaadanaynaa marka 1 second anagoo haysana given kan ah 10 cm sin 0.5 radian per second t time ka haysana 1 ya waxa soo radinayna displacement velocity acceleration xusuusnaa boss kan 10 cm waa boss ka amplitude ka boss kan 0.5 radian waa boss ka maxaa la omega waxa dheena markaas oo amplitude wuxuu la mid yahay 10 cm omega waxa la mid yahay 0.5 time wuxuu la mid yahay 1 second displacement velocity iyo acceleration of vertical ayaan soo xisaabinaynaa marka la soo qaado qalinkaaga iyo buugaaga iyo scientificaaga anna saburada aadi doona insha Allah taala ila soo marka ay tusaalaha 11aad ee chapterka koobaad waa mid kamid ah tusaalayaasha ugu xiisaha badan ee chapterka ku jiro waana tusaalaha ugu dambeeya midka ka horeeya wuxuu leeyahay waxa haysataa isla eg socod qurubyo kamid ah ay sameeyay ka oo ay ku socota socodka loo yaqaan socodka isku dibaridan ee fudud qaab vertical oo joog ay u socotay isla egtu waxay leedahay 10 cm sin 0.5 rad oo ku dhacsan t inta ana haysan isla egta waxaan leeyahay soo radisa ko displacement labo waxa soo radisa waxa loo yaqaan velocity ama keenanka saddex waxa soo radisa acceleration ama karaarka ay sameysay walaxda particle-ka ay sameysay saddexdaas soo radinayna waan soo baranay saddexda qaacido oo displacement velocity acceleration loo kala qaato ama loo isticmaalo marka la soo saarayo socod isku dibaridan ee fudud waxa isweydiinayna hal shay bis shaygan qaabka uu socdo ma vertical ma horizontal hadda waxayna loo cadeeyay inuu ku socdo vertical inuu ku socdo qaab joog muhiimada maxaa la meeshaan diiradda saareen ma vertical buu ku socdaa mase waa horizontal vertical loo cadeeyay marka maadaama vertical loo cadeeyay marka waxayna soo saaraynaa marka given-ka ku jiro isla egtan oo ah amplitude meequu leeyahay 10 cm sidoo kale waxa ku jiro given-ka oo ah 0.5 radian oo taagan booski omega oo ah 0.5 rad sidoo kale waxa haysanaa acceleration markii time uu leeyahay 1 ana ugu qarnashaas meeshan waxaan ugu lisii time kan ugu lisii marka time uu leeyahay marka 1 second anagoo intaan haysano ayaa waxaan raadinaynaa marka saddexda xabo A B C displacement velocity acceleration ayaa raadin doonaa marka displacement ka ku hormarno displacement markuu vertical yahay shay socodkiisa maxaa lagu heli jiray wuxuu ahaa waayo waxa la mid tahay A sin omega t iyo hadii sama waayo waxa la mid tahay marka ma haysana waa kana 10 cm sin omega ma haysana 0.5 radian 0.5 hay time ma haysana 1 calculator ka soo qaado inta geli marka adigoo iska hubinaya calculator inuu ku joogo radian ama ku joogo degree waxa haysanaa marka 10 oo ku dhacsan sin 0.5 oo lagu dhuftay 1 waxa haysanaa marka si ay tahay waxay la mid tahay marka 4.79 soo buuxi 4.8 rad 4.8 radian ayay la mid tahay waxaan soo saarnaa marka displacement ama barbaxa qaybta waxaan loo diray b inaan soo saarno velocity shay hadii uu vertical yahay waxa lagu heli jiray v waxay la mid tahay omega cos amplitude omega cos omega t inta san weli jeeso ma hadda waa haysanaa amplitude omega waa haysanaa t waa haysanaa ku kala bedela marka vertical maxaa la velocity vertical ka wuxuu la mid yahay amplitude waxa haysanaa 10 oo ku dhacsan 0.5 oo ku dhacsan cos omega waxa haysanaa 0.5 kale oo ku dhacsan t oo ah 1 marka la scientific-ga qaado
waxaa la isku hubidaa inuu ku saaran yahay radian 10 lagu dhuftay 0.5 oo ku dhacsan cos 0.5 oo lagu dhuftay hal waxay soo baxaysaa markaas inuu leeyahay xawaaraha ama kaynaanka shay uu ku socday shaygan uu ku socday inuu leeyahay 4.38 soo buuxi waa 4.4 radian per second 4.4 radian ilbiriqsigii qaybta sida ugu dambaysa tusaalahan waxay leedahay waxa soo raadisaa accelerationka shayga vertical accelerationkiisa maxaa loo heli jiray acceleration waxaa mid ah negative amplitude omega square oo ku dhacsan sin omega t ku kala bedelaan hadda acceleration waxaa mid yahay negative amplitude ka qaysana 10 omega 0.5 square garay sin omega ka qaysana 0.5 oo ku dhacsan tiine 1 inta anagu haysanaa calculatorka gelinayna mar saddexaad waxaa iska hubidaa calculatorka inuu kuu joogo radian iyo inaa kala abato marka negative 10 oo ku dhacsan 0.5 oo la square gareeyey oo lagu dhuftay sin oo ku dhacsan 0.5 lagu dhuftay hal waxaa lamid tahay markaas waxaa loo qaran negative 1.19 oo lamid ah negative 1.9 ka soo buuxi waxaa waaye negative 1.2 rad per second square tusaalahayni 11aad ee jabtarka koowaadne halkaas ayuu ku leeyahay waxaa filayaa inaad fahantay oo wax badan baraatikeey doonto ood ku mahadsantahay la socoshada waa hagaag simple pendulum والهدف waxaa waaye is another mechanical system waa hab makaanikeed kale that moves in an oscillatory motion kaasoo socdo walhadeedku shay uu ugu socon karo it consists of pendulumka wuxuu ka kooban yahay mass suspended by light extensible string wuxuu ka samaysan yahay cuf laga soo laadlaadiyey xarig dabacsan kaasoo jiidmi kara of length lehna dhirir from fixed support xarigaasoo meel giijisa leh sawirkan hadda fiiri kana waxaa loo yaqaanaa walhada fudud waa maas oo ku xiran xarigan wuxuu ku giijisan yahay bar oo fixed ku yahay shaygan waxaa loo yaqaana markaa walhade wuxuu u dhaqaaqaa markaas forth and back hore iyo gadaal ayuu u dhaqaaqaa waxaa la soo raadiyaa oo la soo helaa waxa loo yaqaana periodka iyo frequency-giisa periodka waxaa lagu helaa 2 by radical L over G 2 by radical L over G L waxay u taagan tahay length ama dhirirka xariga G na waa gravitation waa la yaqaanaa waana 0.8 meter per second frequency maxaa lagu helaa marka haddii mar period soo helna frequency waxaa lagu helaa rogaalka periodka oo ah 1 over T ayaa lagu helaa tusaalahan ugu dambeeya jabtarka ah tusaalaha 12aad ayaan aadi doonaa wuxuu leeyahay tusaalaha fine soo raadi the period of pendulum waxaa soo raadisaa kalka walhade kaasoo dhirirkiisu dhan yahay 1.25 meter long waxaana isticmaashaa gravitation inuu leeyahay 9.8 meter per second square laba given haysanaa bis midna waxaa waaye dhirirka xariga midna waxaa waaye gravitationka waxaan aadi doonaa marka inaan xalino problemkan ama su'aasha inaan xalino waxaanu aadi doonaa sabuurada buugga iyo qalinka iyo scientificaba hadhigin sababtoo ah waa hubkii ku dagaalami lahayd waxaanu aadi doonaa marka sabuurada insha Allah taala ay soo raacdo maadsan tusaalaha ugu dambeeya jabtarka 12aad wuxuu ina leeyahay waxa soo raadidaa kalka walhade ka oo dhirirkiisu dhan yahay 1.25 meter long 1.25 meter adigoo isticmaalaya gravitation inuu leeyahay 9.8 waxa qornaynaa marka givenkiina la siiyay oo waxa haysanaa laba shay bis dhirirka wuxuu la mid yahay 1.25 meter gravitation wuxuu leeyahay 9.8 meter per second square inta anagu haysanaa waxa noo diray period in a soo raadin of of pendulum kalka walhada waxa lagu helaa 2 by radical L over G intaas lagu helaa givenka haysan ku kala bedela marka 2 by oo ku dhacsan radical L ma qaysana 1.25 oo loo qaybiyay 9.8 calculatorka ay qaado intaas jawaabteeda ama ansarkeeda soo saar marka waxa dheernaa
2 by radical L oo haysano 1.25 loo qaybiyay 9.8 waxaa la mid tahay 2.24 second 2.24 second waana tusaalihii ugu dambeeyay jabtarkeena koobaad hadduu alla idmo insha Allah taala jabtarada xigane waynu soo boobsii doonaa insha Allah taala waad ku maasantiin daawashadeena waxaad isku day sameeysaa ardayow exercise ku jiro jabtarkan koobaad wixii kugu soo adkaadane WhatsApp numberkeena nagala soo xiriir waana kula xalli doonaa hadduu alla idmo insha Allah taala aad u mahadsantahay والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أرضي بانها يو